Maanta waxaan baranaynaa waxa la yiraahdo sida looga ganacsado Bybit. Bybit isna wuxuu kamid yahay bangiyada ama exchange-yada ugu weyn ee cryptocurrency-ga looga ganacsado. Marka Bybit isaga wuxuu aaga fiican yahay kuwa kale oo aan hore u soo baranaynay. Wuxuu aad uga fiican yahay oo uu leeyahay waxa la yiraahdo smart copy. Waxa uu leeyahay sidoo kale waxa la yiraahdo copy guard. Tusaale ahaan haddii aan halkaas tagno well aan fiirino traderkana fiirino qofaan rabnaa inaan raacno مثلا Allahu musta'aan. marka halkaan timaado barxadan waxaan rabnaa inaan doorano copy trading. way badan yihiin shaqooyinku way badan yihiin sida caadiga laakiin waxaan rabnaa inaan doorano copy trading. marka copy trading sida caadiga iyadoo hore u soo barteenba qof master ah ayaa dooranaysaa. masterka markaad doorato kuwii hore waa uu ka duwan yahay isaga qaabka uga duwan yahay waxa waaye qofka masterka ah tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan raacno master aan buuxin kuwa waa buuxaan مثلا kanaan dooranayna. masterka markaan doorano waxa uu leeyahay waxaan leeyahay copy markaan iraado oo aan soo buuxiyo xogtii aan ku raaci lahaay oo dhan markaan soo raaciyo waxa halkaan ku leeyahay wax la yiraahdo Bybit copy guard. lacagtaada wali waxaa si ilaalin doonaa waxa la yiraahdo Bybit oo haddii lacala aad stop loss waxa aad u sameynin waxay leeyihiin xad ay u galin ilaa intaas qofku inuu khasaare karo. tan ugu muhiimsan rabo inaan ka hadlo waa halka qaybtan ay ku qoran tahay smart copy. smart copy waxa waaye markaad smart copy ku dhufato stop loss kaaga wuxuu waxa xadidaya qofka adiga aad raacdo master kaaga. take profit kaagana isaga xadidaya. waayahay marka smartigaas wuxuu ku xakameynayaa inuu ku xadidnaado masterka aad raacayso inuu xakameeyo lacagtaada iyo dhaqdhaqaaqaada inuu xakameeyo. marka isaga saas uu ku fiican yahay. haddii aad laakiin taad rabin waxaad sameyn kartaa kan master trader qaarkood waxay ku leeyihiin kan off iska dheh take profitna ku xiranin. waayo waxa laga yaabaa anoo suuqa ku jiro inaad suuqi ka baxdo hadhowdan aad khasaare ahaato iyo dad kale faa'iido ku jiraan. marka off ayaad iska dhigi kartaa haddaad rabtid. off markaad iska tiraahdo isaga ayaa xakameynaya. laakiin xasuunow inaad halkaas tiraahdo smart copy si marka isaga la siga diiwaan geliyaa sida caadiga ah. linkiga markaad kusoo dhufato tusaale ahaan TikTok dad ka daawanayso link markaad kusoo dhufato TikTok markaad soo gasho waxa ku dhufanaysaa halkan linkiga. haddaa YouTube ka daawanaysana videoga hoostiisa platform halkay ku qoran tahay linkiga ku dhufo. halka markaad imaato waxaad ku dhufanaysaa halkay ku qoran tahay Bybit. keenaya markaad linkiga soo raacdo wuxuu ku dhahayaa hadiyadan kaaga timid saaxiibka macnaha waa bonus laakiin bonuskan haddii aad shuruudaha buuxiso ayaad heli kartaa. marka waxaa leedahay halkan waxaad ku dhufanaysaa claim. markaa ku dhufato halkan ku keenaya marka create account aa leedahay. halkan waa get app soo degso ku leeyahay marka hore iska soo degso appka ka bacdina emailkaaga halkan geli passwordkaaga geli sida caadiga wuxuu ku sii buuxinayaa referralkii koodku ku sii buuxinayaa ka bacdina waxaad leedahay create markaad tiraahdo oo emailka aad buuxiso wuxuu ku geyn doonaa tilaabooyinkan waxa waaye wax kale ma aha. wuxuu kaaga baahan yahay verification wax la yiraahdo oo identity verification. haddii aad Soomaali joogto waxaa ku sahlan isticmaali kartaa passport. isaga passportka soo upload garee daqiiqad ka bacdi wuu verify gareynaya. okay waaye intaas dad samayso wax kalena waa wax sahlan. emailka iyo waxa laga rabaa emailka iyo identity verification iyo waxa laga rabaa wax la yiraahdo inta badan marka qaarkood waxa qofku weydiinaya inuu ku xirto log ama Google authentication. waa marka lacagta la bixiso ku weydiinaya dib ma la idan haddii aad garanaynin sida loo sameeyo video ka sameynaa dib ma laha. okay markaad gudihiisa soo gasho marka aad soo samaysato gudihiisa markaad soo gasho marka sidaan uu noqonayaa waxaan daabkana ku soo muuqanaya marka waxaa leedahay waa inaad soo dhigataa lacag deposit ayaad leedahay. deposit markaad tiraahdo lacagta meesha kugu jirto kale adaa yaqaana laakiin lacagta soo dhiganayso waxa wanaagsan bangiyada safe ka ah sida inaad isticmaasho wax la yiraahdo
Binance oo kale inaad isticmaashaa wanaagsan. Marka waxaan leeyahay crypto deposit crypto. haddaad doonto halkaas koraad ku qori doontaa lacagta aragtid soo deposit garaysa USDT. lacagta meesha lagu ganacsado waa USDT ayaan dooranayaa. USDT markaan doorto si automatic ah wuxuu u qaadanayaa defaultiga koodka USDT ayuu qaadanayaa oo ah Tether. kan haddii lacagta kugu jirto TRC haddii kugu jirto okay, haddii kugu jirin oo ay kugu jirto Binance waxaad dooranaysaa halkan BSC ama BIP20 kana dooranaysaa. kan markaad doorato linka kan ku siinaya kanaad koobiyeynaysaa. kan ayaa waxaad geynaysaa meesha la yiraahdo Binance markaad soo transfer gareynayso. okay, kadib lacagta markaad soo dhigato waxaan ku horumariyay sidaad u raaci lahayd master trader kaad u raaci lahayd. isaga waxaad imaanaysaa halkan home mar walbo ama halkan copy trading kaaga saalan halkan imow ka bacdina xulo master trader kaad u raaci lahayd. saad ku xoranayd sidii hore fiidiyoada hore soo aragnay kama duwana sidii un baa la yeelayaa. marka dadont oo la dhigi kartaa halkan ka fiirinaysaa leeska kore waxaa ku jira top traders oo risk rate of ritaanka kuwa ugu sareeya ee halkan leenka hore ku jira. leenkana waxaa ku jira kuwa ugu badan faa'iido ugu badan si ay ka heleen dadka iyagu raacay. kii aad doonto markaad raacdo halkii aan sheegay ayuu ku geynayaa sida caadiga ah. haddii aad rabto waxyaabo hore u soo qabtay inta badan platformka markii la joogo access badan ma sii qofka intuusan qofka raacin inuu xog badan ka helo. halkan waxaad ku arkaysaa overview markaad fiiriso dhaqdhaqaaqa guud ku arkaysaa qofkan inta lacag asaga uu helay 7 maalmood u dambeysay waa 540 laakiin dadka isaga la socday maxay ka heleen $17,000 ay ka heleen. waayahay halkan waa current open position hadeer ah oo hadeer boos duu u furan yahay. tusaale ahaan qofkan oo kale aniga waan raacay. marka wuxuu tusinayaa hadeer halkan lacagtan inuu qaatay oo bitcoin ah oo mainskaas uu ku jiro 10ka uu ku jiro lacag kale uu qaatay oo lacagtaas ayna uu ku jiro balaaskaas intaas ah. marka profit noqoto sidaan oo kale ay halkan minuska ay read ku noqonaysaa. halkan unrealized ay ku qoran tahayna realized ay ku noqonaysaa markii dhamaato trade-ku uu xirmo. halkan waxaad ku arkaysaa shaqooyinkii hore uu qabtay tusaale ahaan trade-yada hore uu qaatay oo kale trade-kaas oo kale waxaad arkaysaa wuxuu lumiyay $0.5 ka luntay. kan wuxuu faa'iiday $5 iyo wax la jiro. kan wuxuu faa'iiday $4 taasoo ku soconaya $4 uu faa'iiday keenay $1 uu lumiyay $2 uu faa'iiday $6 uu faa'iiday keenay wakaas saasoo ku soconaya. marka trade-kiisa dhan saasoo ku soconaya. haddii aad rabto marka inaad iska diiwaan geliso aad u sahlan yahay kaliya wuxuu u baahan yahay passport toos aad soo diiwaan gelinaysaa toos aad soo dhiganaysaa. linkiga inaad isticmaasho wuxuu ka caawin doonaa inaad fursad u hesho bonuskaas haddii aad gaarto shuruudaha aad soo buuxisid waaye. linkiga iska diiwaan geli wixii kale oo fahmaysan insha Allah taala waan wada joognaa gruubadan ku hadli karnaa.